dhawaada mar labaad waa aniga ah Ridwaan maantana waxaa ila fadhiya walaalkay Ali waxaan isaga ku wareejin doonaa inuu isku kaashayo iyo shaqada uu qabto Ali al-Daha and 25 jira and Portland adganahay 3 sano ama 4 sano jooga so waan ogahay inaad la shaqaysid May Youth Justice muddo hadda dhowr sano ma nooga sheegi kartaa xasbiga la dhahayo Long Creek iyo sida aad shaqadan aad ugu soo jeediseen state-ka in la xiro so waxa waaye Long Creek waxa waaye xabsi oo ciyaalka ku xiraan waaye dadka Mareykanka intuu ku xiraan waaye oo Portland dhexdiisa ciyaalka madow maaragta oo trouble galaan oo dadka madow waa Soomaaliya mise Sudan waaye mise dadkii oo maxaa la dhahaa Rwanda dadkaas madowga Mareykanka ma aha madowga oo anaka waaye because Portland anaka ku baxo ma fahantay so dadkii madow waxaan ahay anaka 1.6% waa ko 1% oo population dhan ma fahantay anaki 1% anako nahay xabsiga dhexdiisa waxaan ku nahay 23%. Wow. ciyaalka yar ma fahantay so anaka waxaa dhibta anaka nahayo waxa waaye askarti ciyaalka xirana so anaka waxa weydiinay dadkii like maxaa dhibaatada maxaa jirto ma magaalada mise booliiska mise maxaa la dhahaa ciyaalkii baa mise iskoolka waa anaka waxaa rabnaa inaan ogaano ciyaalka maxaa dhibaayo so maalin walba marka ciyaalka la hadlo oo ciyaalka naga halaabayaan daroogo isticmaalayaan oo gabdhaha xataa oo guriga banaanka cararayaan waxaa ku kalifaya camal maxaa jirta aan isweydiinoona kadibna waxaan ogaanaa dhulka systemic racism baa jirto haddana dadkeena oo dhibaatada guriga dhexdiisa dhibaato weyn jirto ma fahanto oo aan ka hadlin haddana waxaa jirto iskoolka dhexdiisa ciyaalka yaraa oo lagu dhibsanayo maxaa la dhahaa maclimadda iyo amise wiilasha dhalinyarada oo ayaga la dhaqmaan amise xagee aadayaan so guriga hadduu qaylo jirto oo hooyo iyo aaba hadday isfahmayaan banaanka la aada banaanka marka la sii aado kadibna waxaa la arka askarti marka la arko war tartiib soco askartaana dhibaayo askarti hadduu maxaa la dhahaa banaanka oo aad joogi karin iskoolka aadaysa iskoolkana waa lagu qaylina haddaad daalan tahay maxaa la daalan tahay waxaa dadka askarta lagu soo wacaa amise hadda afka ugu celisid maaragta so iskoolka haddaad dhib ku tahayna guri masaajidka inaad si aad rabta laakiin masaajid markaa aadid waxaad haysataa buumo amise maxaa la dhahay oo garan yar amise buumo yar haddaa wadatid waa lagu qaylina so ciyaalka madowga oo Soomaali ah meel oo ayaga oo ku raaxaysani karaa ma jirto de maxaa Mareykanka dhan dowladda dhan way necab yihiin anaga xataa waan ku qaylinayna maalin walba ma fahantay so ciyaalka waxay aadaan wiilasha dhan waxay isla aadaan meel oo kubadda isla ciyaaraan mise meel oo basketballka ku ciyaaraan amise guriga isla aadaan guri oo ayaga dhan maxaa la dhahaa oo isla dhaqmaan isla aadaan so ciyaalka marka waxaan dhan ayagoo dhibaya ma aragtaa ciyaalkina la xiro ma fiican mise caawis inay helaan fiican caawis inay helaan so aniga waxaan dhahanaa waxaan ka wadnaa xabsiga oo la xiraayo lacagta oo ku jiro lacagti waxaa soo marto 18 million sanadkii soo marto lacagtaas community-ga dhexdiisa haddaan gelino oo resource oo u sameyno ciyaalka oo inay maxaa la dhahaa kubad ciyaaraan amise like barnaamij bilaabaan waxyaalahaas hadday awoodi karno anaka aan samaysano because xabsigu ma fiicno ma fahantay so waxaas shalay waxaa jiray dhageysi dadweyne halkaas oo ay ka hadleen dad dhaqdhaqaaqayaala sida adigoo kale marka sida ay u dhacday maad noo sheegi kartaa iyo sida aad dareemaysid adigaas so xabsiga in haddaad xiri rabtid maaragtaa dadkii oo government joogo oo dadkii oo dowladda maaragta representative ka ah ayagii inay waraaq helaan oo inay isla heshiiyaan waaye oo isku qoraan ma fahantid like inay isku heshiiyaan inaan la xiraayo because anaga ma xiri karno waa dadka dowladda fahantay so anaga waa inaan fahansiino camal inay xiraan sababta loo xiraayo why maxaa haddaad xirabsid maxaa sababta loo xiraayo aw xirabtid maxaa waaye iyo maxaa sii sameyn rabtaa kadibna fahantay so aniga dagaalkeena waxa waaye
على ماشان عيال كل بويا because هذا دت عيال ما هو عيال حبس الوحرة عيال يرير واي وقتها قدد وين معها اللي يرضي مثلا صدق هي تمام أفريقيا تمام شيء تمام جروا ومل قل يرى الوحرة فهمت ماني والبو قلت كاس هذا الوحرة وسوى على الناس سمعت فهمت أنا كواحد كجرنا و mental health و حنونكم مسكح هذا ما عرفته بو أديك وحقنا it makes it worse واحد في عام مكسي نبشر كسي أتكلم أديك ما فهمت سو مركز هذا وحكي السمين كانوا أنا كأت سكول أو education أو محلها even university هذه قليل جدا كنا ما عرفته هذا شقي في عني هلان أو محلها أو عاثمات هلان أو محلها ناق وقف إلي جورسان أو عيالها صاني أو عيالها صاني أور من عيالك إني ما هو بحبس الوحيد مرة من ممتاز ما قلتي hadda sida aad noo sheegtay dawladdu waxay gelisaa 18 milyan baad dhahday sanad walba halkii qofna markaa waxay noqonaysaa 300,000 oo kun si loo xiro leh so maxaad dhihi lahayd lacagtaas waa la gelin karaa intii la xiri lahaa ciyaalka lagu xiri lahaa 300,000 oo kun sanadkii xabad cunug hal cunug lagu xiraa 300,000 oo kun aan ku sheeganayo aniga iskoolka marka iskoolka aan dhigtay waqtiga waxaa bixiyaa 9,000 bish sanadkii ma fahantay 9,000 oo waa college hay'ada 9,000 $36,000 oo 4 sano aan college ku dhigtay 4 sano ciyaalku waxa 300,000 oo kun sanad walbo oo meel ku xiraayaan like lacagtaas waxa lagu sameyn karaa hado aniga waxa ku jira lacagtaas hadaan maxaa communities oo dadkii oo loogu faa'iideyn karaa hada lagu faa'iideyn karo ma aragta maamayaasha la caawiya mise dhulka dhan hada la dhiso waxyaalahaas dhulkeena oo madow oo aniga ugu badan ma aragta hada dhisno like muxuu noo tari karaa hado wax fiican noo tari karto aan walba dadka iska xiraaya adigu Long Creek meesha aad rabtiin hadda in la xiro aan rabno annagana in la xiro waqti baad ku qaadatay aniga 9 sano hadda aan ka shaqeeyo waxaan anu waa la xirnaan jiray waqtiga anoo yar ah meesha gara anoo 15 jira waxaan fahmay waxaan waa wax cajiib aniga dhan maskaxdayda dhan noqday anxiety aniga dhan fahantay markaan soo baxay kadib waxaan ogaaday waxaan waa wax oo qalad ah oo lagu sameeyo dadka madow especially madowga badan mise Hispanic xataa lagu sameeyo jiray Asian xataa lagu sameeyo jiray dadka cadaanka zaid ma lagu sameeyo dadkeena waa dadka oo maxaa lahaa oo color ah markaan ogaaday aniga 9 sano hadda aan ka shaqeeyaa waxaan waa ka hadli jiray moogtahay wax badan aan ka hadli jiray kadibna program barnaamij aan bilaabnay oo ciyaalka oo aan la shaqeyno ciyaalka kadib markaan la shaqeyno kadib waxaan dhahnay waxaan naga xir waxa uu fiicnaa maalin walba qof kala soo baxaya dadkii oo soo baxo ma fiicnaadaan drooge ay ku noqdaan haddana qaarkooda way bisi dhintaan qaar meeqo maxaa la dadkaan oo naga dhintaan oo maalin walba maxaa la qubuurka caadayno fahamta soo dhibaatada anaka aragna askarta ma arkaan anaka aragno anaka xanuunkan dila waan gartay waalidiinta maad u sheegi kartaa madow waxa ay tahay in America madow qof madow inuu ku noolaado maadaama oo iyaga ayna dhalinyaro ahayn ayna dadkii dhaxgelaynin booliskii way iska ilaalinayaan iyaga laakiinse dhalinyaradii iyaga wax ay jecel yihiin iska suubinayaan booliskii u imaanayaan madow ahaan daraadeed marka maad u sharxi kartaa madow ahaan madow waxay tahay dadka kor cad ma garanaya dadka kor cad dadka European Mareykan markay imaadeen waa history waxaa la jirto dadkii oo Africa oo jooga ma aragtaa waa la soo xadxadi jiray markay xadxadaan waxay ka dhigeen abid waxay ka dhigeen waa slavery waa shaqaalo caadi ma aha waa shaqaalo oo lugaha laga xirxiro xataa lugaha hoostiisa ma aragtaa waa la goyni jiray inay cararin kadib inay cararin dartooda waa la qaawani jiray soo sanad 400 oo sano oo dhibaato madow dadka Afrikaan soo maray inta dhexdiisa Mareykanka fahantay soo anaga markaa imaano waa dadkaas aan la dhaqmaad so dadka free noqday laakiin lacag ma haastaan shaqo fiican ma la siinaan waxyaalahaas oo dadka madow Mareykanka ma aragtaa dhibaato badan ay ku jiraan anaga markaa imaanay anaga waxa u maleynaa qax khatar ah
oo lacag guriga lacag dhulka lacag laga sii qaato laakiin aniga dhan dhibaatadaas la ku jirnaa so haddeer dagaalka ma dagaalka oo maxaa lahaa meesha ka imaanimaya masaaid dagaalka oo inta anagoo joogno wey fahamta so aniga waa dagaalkii oo waxaa dadkeena inaan u dadaalno waa gartay wax oo tala amaad u haysaa waalidiinta iyo ciyaalka sida ay iskugula shaqayn lahaayeen si ayna waxaan oo kale u dhicin ay uga ilaalin lahaayeen booliskan ay ka hor imaanayaan iyo waxaas booliska xataa ma aha runta kuu sheego wallahi waxa waaye guriga dhexdiisa wey maamayaasha iyo aabayaasha runta haddaa la sheego aabayaasha guriga mug joogaan aabayaasha mise waa maatano ay shaqaynayaan mise masaajidka ay fadhiyaan laakiin xaq waxay ku leeyihiin ciyaalka inay aabo noqdaan mafahantay aabo fiican oo baraay sidaas wax fiican oo saan tartiib wada hadlo haddana maamayaasha xataa maamada keligeed wax walba sameynaysa aabaday noqonaysa hooyaday noqonaysa qayli maalin walba mafahantay so waxa u fiican inaa ciyaalkaaga faham like diinta wuxuu yahay diinta waxa ciyaalka wax badan oo maraykanka anagoo joogno wax diin ma qabnaysa mafahantay anaga waxaan barno like adinka waxna bartiin ciyaalkeena baraynaa arabnaa laakiin qaarka like anaga maalin walba waxa qayli haddaan nagu dishin oo maraykanka dhexdiisa qaylin haddaa nagu dilo ayagana xagee aadana marka banaankii baa loo bixi haddana booliskii baa laga hor imaanaya laakiin haddaana fahmaysid haddaa lana hadashid oo aan kuu sheegno maalin walba saana dhacaysa waa fahmaysa markaas ciyaalkayga dhibsan maalin walba ciyaalkayga dhibsan aniga waxaas ma ahaan so haddaa isla shaqeysano hadhow ciyaalka dadka kale la shaqeynaya adiga haddaa weliga ciyaalka la shaqeynay yaa la shaqeynaya fahanta so it's just like dhalinyarada oo stateka iyo magaalada degan baan waxaan dhexay walaalkiiba cali baan wareysanaya marka su-aalo maad haysiin waxay dhaheen haddii aad ku laabatid kolkaad ahay 15 jir ya hadda waxaad og tahay 15 jir adigoo kalaa maxaad u sheegi lahayd qaladka adiga maskaxdayda ku aqri lahaa waa iska caadi waa wax walba aad samaysay qalad maskaxdayda sababta waxaa waaye ilaahay waa caafinaa dadka aniga ma caafinaa dadka sababta maxaa waaye qol kuligeena qalad aad sameynay fahane so waxaan ku dhihi lahaa ilaahay xasuuso iyo weligaaga ha joojin waxaad sameynaysid continue waxaad sameynaysid just hore u soco ilaahay ku maxaa lahaa qadarkaaga oo kuu furaayo wax walba albaabka kuu furaayo laakiin haddaad wax walba zaa'id xumaad haddaad xasuusatid adiga dhan adaa is dhibsanaysid ma fahamtay so dhaqankaaga xumaanayo so waxa fiican iska sabarka oo iska sugaayo ma aha sabarka oo tartiib loo shaqeynayo oo xoog loo shaqeynayo ma fahamtay oo dadka aad markaa la sii hadashid aan meel gaari rabtid saas ku sheegi lahaa laakiin aniga qalad maskaxdayda aan ku dhihi lahaa hadda walaalahayga saasaan ku dhahaa wax walba aad samaysid waa ciyaaraad tahay inaad samaysid inaad qalad samaysid waaba bilaadan baan ahay inaad samaysid waaye laakiin hadda inaad fiican inaad ogaashid okay wax qalad aan sameeyey waxa fiican aan sameeyo hadhow ilaahay ku caafina markaa dhow fahamtay ilaahay hadduna caafina aniga sababto maxaa maalin walba ciyaalka lagu qaynina oo kan halaabay kaas waa halaabay anaga baa halaaban maxaa ku daya kulligan anaga halaaban so we have to patience iyo sabab inaan ciyaalka la sabarno wey dadka oo dhalinyarta ama dadka waaweyn rabaan inay ka qayb qaataan dhaqdhaqaaqyada aad suubisid ama aad u dagaaltantid dhalinyarada yare lagu haayo caburinta lagu haayo maxaad u sheegi lahayd ama dhaqdhaqaaq waxa aad samaysid shaqo may noqon kartaa oo may shaqo wey aniga waxaan shaqeeya hadda 3 shaqaan ka shaqeeya shaqo way noqon kartaa anoo shaqeynaya ka hor 7 sano shaqeynaya waxba lacag badan ma heli jirin haddeer 2 sano gudahiisa like waxaan 3 shaqo hadda haaso hadda lacag fiican sameynaya laakiin waxaan ogeynani waxaan lacag inaan laga sameyn karo organization waxa jirto lacag ay helaan waxa waaye lacagta ay helaan waa from grants waxa jirto waraaqo oo aad saxiixaysid shaqadan aad sameynaa lacag lagu siinaa shaqadaas aad sameynaysaa so shaqadii wuxuu yahay hadduu yahay dadka oo government hadda la sii hadlaysa advocate garanayso dadka hadda
وسهلنا محلها ودagaaltamaysid oo dagaaltamaysa camal waxaa jirto iskoolka dhexdiisa adaa la shaqayn rabtid waxaa jirto principalka dhexdiisa waxaa jirto askarta xataa kala dhexdiisa inaa la shaqaysatid waxaa jirto adiga barashadaada xataa maalin walba waxaan baranayaa yani anoo 9 sano ku dhex jiro waxaan dhan maalin walba wax kale aan sii baranayaa so adoo shaqadaada xataa wuxuu yahay barashadii iyo waxaad ugu anfici kartid dadka oo iyo dowladda iyo waxyaalahaas waan gartay community-ga aan ku dhex noolnahay hadday rabaan inay caawiyaan May Youth Justice activist iyo xiritaanka Long Creek maxaad adigu kula talin lahayd inay kaa caawiyaan ama community-gaaga inay kaa caawiyaan maxaad garab qabtaan maxaad way badan tahay sida loo sameeyo ko waxaa jirto city councilor oo for example Sofia Qaadil camal you know oo iyo Pius jirto iyo Andrew Zaro dadkaan oo na caawinayo oo waxaa la dhahaa representative dadkaas haddaa la sii hadashid oo cod ku dhahdid maxaa sameyn karnaa anaga dadkayga waa dadka aniga inoo shaqeeya mogtahay maxaa sameyn karnaa anaga oo maxaa xabsigan inaan xirno ayaga waraaqay qori karaan marka dadka oo maxaa la anfaafiya ba adiga shaqadaad waxa waaye dadkiina la sii hadashid dad qofkaasina la sii haday aniga representative me ma fahanta laakiin boqol xaba garanaa ka tartiib ku hadalaya waa la hadla waa la sheekaysta cidoodaan barta sababtii waxa waaye ana u sheego runtii u sheegaysa dadkayga waxaan dadkayga dhibaatadii baad aragtay waa soo dhex martay waxaan dadkayga waxaan ujimayaa waxaan naga jooji markaas way fahmayaan ayaga waxay waxa loo sheegay dadka ma fahmayaan ma fahantay so in haddaad u sheegto aad la dhaqantid oo aad baratid dadka ma aragta meel la gaari kartaa meel la hashiini kartaa you know hadhow so walaal cali maad noo sheegi kartaa waxyaalaha aad community-ga u qabatid meesha adiga iyo bartaba bogaaga social media-ha meesha aan ka heli karno waxa ay yihiin iyo shaqooyinka aad qabatid meesha aan kala socon karno ma noo sheegi kartaa waxa waaye Facebook haddaan ugu xiriiri rabto waxa waaye Main Youth Justice iyo aniga magacayga waa Facebook waxa waaye cali haddaad request haddaa ii send garaysid waxbaa ku aqbalaa Instagram waxa waaye Humble Philosopher cali dhahaa Twitter waa Humble Philo 2020 waan isku qoraa meesha ku qoraa insha Allah dadka oo Facebook isticmaala bahalkiisa waxaan soo dhigaynaa hoos baan soo dhigi doonaa dhalinyarada oo Instagram-ta isticmaashana insha Allah go follow him you're gonna put it on the bottom aad baa ugu mahadsan tahay walaal cali dadkana waxaan ku dhigin karnaa ina aad dadka oo kuu shaqeynayo oo community-ga ku jira inaad la xiriirtid oo la socotid wixii dhalinyarada ka dhex dhacaya iyo booliiska marka thank you very much